gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo halgamay cabdiraxmaan sheekh maxamed mahdi maade ayaa guud ahaan ummadda muslimiinta gaar ahaan bulshada ku nool dowladda deegaanka Soomaalida ogaadeen ayaa ugu hambalyeeyay bilashada bisha barakaysan ee Ramadaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan uga tabinayaa dhammaan ummadda Soomaalida iyo ummadaha Islaamkaba in Ilaahay nagu barakeeyo bisha Ramadaan ee bilatay fadligeedana Ilaahayna siiyo Ilaahay kuwa xoreyn nagu daro kuwa cibaadada guto Ilaahayna uu hogaansamo naga dhigo billahi kariim. gudoomiyaha ayaa ummadda ugu duceeyay inuu Ilaahay ka badbaadiyo khataraha cudurrada faafa ee adduunka saameeyay sidoo kalena wuxuu faray xubnaha jabhadda in ay ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan fayraska corona. intaad la socotaan duruufo badan iyo cudurro badan ayaa dhiiga adduunka meel walba maanta ka taagan khaasan cudurka la yiraahdo coronavirus. waxaan eebba ka baryaa bisha fadliga Ramadaan inuu Ilaahay shartiisa naga duwo cudurkaas isla markaana dadka Soomaaliyeed meel joogan bayamada Islaamka iyo dadka adduunkaba inuu Ilaahay ka badbaadiyo bisha barakaysan Ramadaan fadligeeda Ilaahay nagu gargaaro. xubnaha ururka ONLF waxaan ugu baaqayaa inay gacan ka geystaan si loo maaragtay dadkeena loogu baraarujin lahaa khatarta cudurkan uu leeyahay. cudurkan cudur aad khatar u ah coronavirus waa cudur aad halis u ah Ilaahay naga badbaadiyay inay ku booriyaan dadkooda inay talooyinka caafimaad la siinayo hay'adaha caalamku keenayaan ee dawladda hay'adaha caafimaadku keenayaan in arrinta ayadana ay maaragtay u feejignaadaan oo ay ka qayb galaan si bulshada looga wacyigelin lahaa kala fogaanshaha gacmo dhaqashada iyo waxyaabaha fududayn kara inkastoo aan aaminsanahay Ilaahay qofka ku riday inuu cudur ku dhacayo haddana Ilaahay wuxuu na faray dadaal marka inaan cudurka la dhayalsan miyi magaalaba loo feejignaado talooyinka dawladda la qaato muxuu ahaa gacan laga geysto dhammaan ururada iyo dhammaan xisbiyada iyo dawladda gacanta iska qabsan si wax loo sameyn lahaa. cabdiraxmaan sheekh maxamed mahdi ayaa sidoo kale bulshada ugu baaqay in ay ka fogaadaan goobaha godan ee ay ka dhashaan fatahaaduhu. dhanka kale gudoomiyaha ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan curashada roobka guga tabcadaana beeraha si ay uga kaaftoomaan deeq shisheeye. sidoo kale waxaan uga digaynaa shacabka Soomaaliyeed deegaankan khaasan dadka agdegan wabiyada dooxooyinka waaweyn maadaama gugan uu si fiican u curtay khataraha waaweyn dadkeena ku dhaca marar badan waxa weeye fatahiyo iyo daadad dad badan iyo xoolo ay ku baaba'aan marka in laga digtoonaado laga sii tashado wareeruhu ay ka guuraan meelaha maaragtay muxuu ahaa hundaha ay meelaha kor u kacaan dad shacabka Soomaaliyeed wabiyada agdeganna ay waxyaabaha muhiimka ay ka dadgureysaan oo dhulkaraadyada ay maaragtay danahooda geystaan isla markaana dawladaha iyo hay'adaha qaabilsan ay arrintan u sii diyaar garoobaan wax laga qaban lahaa maadaama mar walba daadku dhibaato weyn geysto taana waanu maaragtay dadkan ugu digaynaa inay arrintan ka diyaar garoobaan biidnillaahi kariim waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in maaragtay roobku khayr iyo barwaaqo noo keeno aafana uusan noo keenin waxaa kaloo jira sanadka waxaad aragtaan in ayaxii haddana soo noqonayo biidnillaahi kariim waxaan Ilaahay ka baryaynaa culimadana diinka ha badiso oo baryada la badino Ilaahay ayaxa iyo waxa uu wataan uu nadaafiyo oo daaqa iyo muxuu ahaa beeraha Ilaahay ka badbaadiyo biidnillaahi kariim akala aan halka fariin uga fareeyo ummadda Soomaaliyeed maalmeed joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed deegaankan degan inay ilaashato midnimadeeda walaaltinimadeeda iyo inay gartaan dantooda oo ay si wada jir gacanta isu qabsadaan. waxaa kaloo maanta fadligeeda waxaa Ilaahay bisha Ramadaan ku soo aadiyay ayadoo gugi curtay marka ummadda Soomaaliyeed joogto gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaan ku boorinayaa inay ka faa'iideystaan oo ay deeqda shisheeye ka maarmaan dhulkooda tabcadaan oo ay maraha dalagooda ka faa'iideystaan kaasana ka caafimaad badan kana faa'iido badan dhaqaalahoodana horumarinaya. sidoo kale waxaan Ilaahay uga baryayaa in ummadda Soomaaliyeed ee khaasan deegaanka degan waxaa dhibaateeyay muddo badan dawlad la'aan taasoo u keentay inay u nuglaadaan abaaraha colaadaha iyo dantooda inay qabsan waayaan marka Ilaahay inuu maaragtay u dhaliyo dawladda iyagu ay leeyihiin oo dantooda iyo diintooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda ilaalisa isla markaana sida dadka kala adduunka u noolyihiin ugu noolaadaan fursad u siisa. waxaan Ilaahay sidoo kale ka rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba in ay gacmaha isqabsato midnimadooda ilaaliyaan dhibaatooyinka soo hareereeyay ee muddo badan socdeen ay ku xalliyaan si nabadgelyo ah ama ha noqon dadka Soomaaliya ku nool ama ha noqon dadka ku nool muxuu ahaa gobolada deegaanada kale dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin
gaar ahaan shacabkeenna waxaan rajaynayaa duruufo badan baa dadkeena soo maray xilli waxaan maanta maraynaa aan ilaahay maaragtay aan u shukrino colaadii badnayd iyo abaarihii ilaahay uu naga qaaday inuu ilaahay saa nooga soo wadaan ilaahay ka baryayaa waxaa jira marar badan in shacabka madaxa la isugu geliyo wax qabaleeyo la yiraahdo oo deegaano aan macno lahayn dhulka Soomaalida waa ilaa 400,000 kilomitir in ka badanba dhul la'aan ma haysa tala xumaan haysa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed deegaanka degan inay walaalnimadooda iyo midnimadooda adkeystaan oo khilaafaadka yararka ee dhul iyo meelaha macno isku qabsanayaan aydan waxba dhulkii hore waxba laga qaban horumar aan lahayn in arintaas ilaahay ka badbaadiyo biidnaahi kariim bisha fadliga Ramadaan. ugu dambeyntii gudoomiyaha jabhadda ayaa ugu baaqay cid kasta oo mas'uul ah in uu garto xilka uu ummadan u hayo sharcigana ku dhaqmo sidoo kalena dadkan walaalaha ah ee ka soo gudbay marxaladaha colaadda iyo abaarta inay iscafiyaan fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan. ugu dambeyn deegaankeenu waa deegaan dagaal ka soo baxay waa deegaan hadda nabad doonaya waxaan rajaynaynaa cidda mas'uuliyiinta ee deegaankaas ama ha noqoto xisbi ama ha noqoto odayaal ama ha noqoto odayaal dhaqan ama ha noqoto dhalinyarada ama ha noqoto haweenka dhammaanteen inaan u guntano sidii dadkeena khilaafka looga ilaalin lahaa isla markaasna maamuladeena ay noqdaan maamulo caadil ah oo khilaaf ayagu aan abuureyn dadkaan iska horkeenin dadka xaqooda ilaalinaya nidaamkii shuruucda ilaalinaya haddaan dowladnimadu waxay ku dhisan tahay waa nidaamkii shuruucda in la ilaaliyo inta wax uusan jirin oo lagu talagalo in shacabka Soomaalida u baahan yahay maanta deganaansho kala qoqob iyo kala xuquuq iyo siyaasasho uma baahna taasaan ugu baaqaynaa in bidnaa bisha Ramadaan in maaragtay deegaankan noqdo deegaan amni ah oo degan oo dantiisa gartay inuu ilaahay naga dhigo saad la socotaan Itoobiya dhammaan qowmiyadeeda maanta qolo waxay u guntantay danteeda inay qabsato amnigooda dhaqaalahooda siyaasadooda inkastoo dhinac ka fiican ilaahay nagu barwaaqay nabadda iyo amniga dalkeena haddana waxa weeyaan inaan ku sii dadaalno aan ku dadaalno qof kasta mas'uul oo ku talagalo in xil uu nabad saaran yahay waxyaabaha dhibka keenayna aan iska ilaalino afkeena iyo adinkeena iyo muxuu ficilkeena oo noqdo ficil biidnilaahi kariim bisha Ramadaan cibaado iyo shaydaanka naga xiran aan ka faa'iideysano guud ahaan intaas nabadda Soomaaliya ugu baaqayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.